anigu waxaan ku koray Sacuudiga aan ku koray Sacuudiga markii aan ku korayna waxaan nahay dad cizad leh oo xitaa Soomaaliga waxaan garanayaa qofka waxaan looga sheekeyn jiray odayaasha Soomaalida taabiciidaha maqaaxida loogu keeno ayaa la oran jiray taabiciidii Sacuudiga qaado markaas oo jiray maanigoo Soomaaliya ayaa qaatay jinsiyad Sacuudiya ma doonayo cizad halkaas ay naga joogtay شيخ الأورنجري سعد الغامدي شيخ سعد الغامدي حفظه الله قارئا أيها قريجي سيقول عسومي مر قريجي سيقول عسومي أيها يدي السعيدة وما أنت وحن كو كرامدين يعني كو شرفيا إن النت صوماليا بربريا كو صوقلي وإحنا نعسومي مركا وأصدقا ويعسومي يا معلم كيس القرآن وعسومي يا ننكلو ليبيا وعسومي أفر بانونا معلم كيس القرآن ayaa wuxuu yiri ya Sheekh Saad hadii aad marba tiri ari Soomaaliya ayaa neef barbariyan Saciid u qoran ku karaamadeynaya fatwan ku haya culamadii Soomaaliya joogtay ay qoreen fatwada waxa ku taala Soomaali weydiinaysa culamadii Soomaaliya oo leh hadii aanu nahay dad Soomaaliyeed dadka Sacuudiga degan sadaqa ma loo qaadi karaa dadka Sacuudiga degan Sacuudiyiinta ay batroolka maanta ku cabaya tumbadaha sadaqa ma loo qaadi kara culamadii Soomaaliyeed baa la weydiiyay Masrigiiba wuxuu yiri Sheekh Saad wata xalka Soomaaliya ka sii haan jireen sida rag sharaf leh oo qiimo dad qiimo leh ay haan jireen Saad al-Ghamidi markaa wuxuu yiri hadii aad taatirana mid baan ku sheegaya wuxuu yiri aniga aabahay oo nool maanta Saad al-Ghamidi aabihi oo nool wuxuu yiri wuxuu iigu dhaartay inaan anako reer Maka ah oo khamiisadu uskag nugu andul angageen inaanu sugi jiray awrta ka timaada Soomaaliya doonida la soo saaray oo marka la arko awrtii Soomaaliya la oran jiray Allahu akbar sadaqa Soomaaliya nooga timi Saad al-Ghamidi wuxuu ii akhriyay marka wa tilka al-ayaamu nudaawiluha bayna an-naas saasa adduunka loo wareejinayaa buu yiri maantana Soomaalidii ayaan darro sadaqa loo urinaya Saad al-Ghamidi